wafdigan uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale wasiiru dowlaha gaashaandhigga ayaa ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, waxaana garoonka ku soo dhaweeyay safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur America iyo qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi Siyaad Maxamuud Shire iyo sidoo kale senatarka laga soo doonto countiga Lamu Abu Maxamed Abu Chayba iyo safiirka dowladda Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya Joseph Maykara. wafdiga ayaa markii ay garoonka ka soo degeen waxa ay qaybta nasashada ee garoonka warbaahinta qaranka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, isagoo sheegay in safarkan ay ku marayaan wadamada dariska la ah Soomaaliya uu yahay mid isbarashaha maadaama xukuumaddu ay cusub tahay, isagoo sheegay inay soo mareen dalalka Itoobiya iyo Djibouti, waxaana uu xaqiijiyay in sidoo kale ay tagi doonaan dalka Uganda, waxaana dhammaan wadamadaasi yihiin wadamada ciidamadu ay ka joogaan dalka Soomaaliya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Socdaalka iyagana wuxuu qayb ka yahay safarkii aan ku soo maray Itoobiya iyo Djibouti. waxa weeye dalalka jaarka anagoo prime ministerka iyo dawladdu ay cusub yihiin inaanu soo marro soo salaano halkay wax marayaan uga sheekayno iyaga laftoodu noo sheekeeyaan waxa ay u malaynayaan in la qabto haddii waxa weeye dalkani dalaan jaarnahay Kenya waxaan la kulmi doonaa madaxweyne ku-xigeenka waxaan la kulmi doonaa dadka Soomaalida halkan degan hadday noo suuro gasho also waxaan la kulmi doonaa ambassadorada halkan registrarka marka waxaan u soconaa waxa weeye inaanu soo salaano jaarka iyaga ayaan u soconaa berri haddii ay beedmana waxaan tegi doonaa Kampala oo sidaas leegaan samayn doono. waxaan filayaa markaa taasi inay dhammaystiri doonto socdaalka iyagii intaa wixii ka dambeeya laga yaabaa wadannada kale ee ku xiga roundka labaada inaanu iyagana soo marno ayaa laga yaabaa. marka taasaa socodka iyagu ku tacalluqsan yahay. taasi qayb bay ka tahay sidaad ogtihiin waddankan ciidan weyn baa ka jooga Soomaaliya iyagoo qayb lixaad la ka qaadanaya dib u hantiga dalka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin AMISOM. haddana iyadoo saa tahay haddana dee jaar baan iyaga nahay, waxay noqotay inaan dowladaha jaarka soo marno. wafdigan uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa la filayaa in maalinta berri ay la kulmaan madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto, iyadoo kadibna la filayo inay u duulaan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Cilmi Maxamed Waare, telefishinka qaranka Soomaaliya, Nairobi.